السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدونك يا الله وأدونك يا الله. حقوق ذا والدك وين صار رجني حالي وين صار رجني هبين هره عاوة وقسويا حقها وحن ربا إن كيردوه قسوين كان وحه إلهي وقرآن كيس نوجو بديي حبيبك وحو نوجو شيء صلى الله عليه وسلم وعبرة إن لو عبرة قاته ما هو واحد انت لسك شيء اللي قتها وحكمة وعبرة وعظة وديره قلن وحاكمده حق والدك وبتكيسو كله هي إن لفوليو كدب مرك والدك انتو دردارن كيسي ونكسنا إن لفوليو بحر النمدي كميته آدو إلالية أنيقو وحياب بدن أكسون iskaba dhaaf dardaarankoode markay hooyo iyo aabba dhintaan khaasatan hooyo marka ay dhimato in reeruhu kala tagaan in gabdhuhu kala tagaan wiilashii gabdhihii kala tagaan walaalihii uurka hooyo wada galay inay kala tagaan waana qayb ka mid ah caasinimada waay in la sii wada jiro in la is walaalaysto in garbaha la is qabsado in la isu naxariisto kan weyn kuwa hoose uu naxariisto yar yar kan yar kan weyn uu abooway abaayo in la is yiraahdo in la wada jiro oo la is ilaaliyo la isu naxariisto la is jeclaado la is ururiyo waxay kamid tahay baarinimada waana sida loo baahan yahay waana sida diinteenu nagu dhiirigelinaysa caawa waxaan rabaa inaan idin la wadaago qisadan quruxda badan waa qisa ina dhaxmartay aniga iyo aabahay Sheekh Ibrahim Ali Hussein Allah u naxariisto dambigiisana Allah dhaafo isaga iyo hooyo jannatul firdaws maca alxabiibna Allah geeyo ehelkii ay ka tageen kuwa ka khayr badan Allah ugu bedelo daartay ka tageen daar ka khayr badan Allah dejiyo gadaashoodna ilaahayna ma fitneeyo habeenada kamid ah maghrib ayuu tukaday aabe kadibna wuu ii yeeray isagoo salligiisii fadhiya maxamed kaalay waxa uu yeeray axmed oo iga yaraa cabbaas oo iga yaraa isna saddex wiilo walaalaynu ahayn markii laynoo yeeray fariistaa la yiri anigu waan baqayaa marka wiilashan waa la mid maxaa yeelay aabe marmar buu wuxuu nagu kedin jiray subaca ayuu nagu kedin jiray anagana dugsiga ugu goynaynaa marmar balooniya marmar ciyaarayna si fiican wax uma xifdinayna bal inaan dugsiga wax ka baranay in kale ayuu marmar nu controla inuu nala subciyo suurad noo soo bixiyo intuu aayad noo bilaabo dhameystir yiraahdo wadnahana garaacmay anaga waanu baqayna mar walbo aabbo u yar waa cabsadaa marka waa hor fariistay wuxuu u yeeray hooyo deeqa xaaji xirsi hooyo macaan Allah u naxariisto qabrigeedana Allah u waasiciyo ayaa loo yeeray kaali buu yiri deeqa mooy timid hooyo way taagan tahay annaga hortiisaan fadhinaa keenuu yiri gacmaha aad u dhageysta waa dardaaran waalid weydan afacaya wuxuu yiri gacmaha keena gacantii baan u dhiibanay tiisi baan kor saaray axmed baan kor saaray cabbaas baa teediisii ku tii axmed sii kor saaray gacantiisaanu saddexdeeni gacan saarnay mar allaaliyo markaan saarnay ayaa wuxuu yiri indhaha qabsada faatixadu akhriyay wuu duceeyay kadibna wuxuu yiri indhaha fura waan idin la dardaarmayaa ballan iyo ahdi ayaan idin ka qaadayaa diil ayaan idin la galayaa oo dardaaran waalid waa waalid ubadkiisii jecel anagana ilmo yaro baariyaalaanu ahayn mar walba kuwa naga waaweyn waa aboowe iyo abaayo iyagana saasayna dhihi jireen mar walba waanu isjeclayn inteena dhimata Allah u naxariisto inta noolna Allah inoo dhooro ummadoo dhan sidaas u rajeynaya kadib wuxuu yiri aabo maanta mubaayaca ayaan idin la galayaa dardaaran aniga da'baan gaaray inaan dhintaan laga yaabaa goordhow geeridu iskuma kaa sheegaysa waxaad maanta hanti badan oo adduunyo oo aad iga dhaxlaysaan maanta malaha laakiin waxaad iga dhaxlaysaan hanti aakhiro
kitaabo iyo cilmi baad iga dhexlaysaan. imaam buu ahaa aabe, masaajid buu xaafadii busley ee baydhaba ayuu ka dhisay. markuu soo tujiyo casaradii oo kale guriga uu ku soo laabtana deriska inta raggaa dumarkaa iman jiray, meel yaroo mawlaca kitaab buu ugu akrin jiray, haddana wuu ugu sheekayn jiray. weligiina waxaanan diin ahayn kama aanu sheekayn aabe, allah u naxariistee. marka nin aada looga yaqaan u ahaa magaalada baydhabo. wuxuu yihi aabe waxaad iga dhexlaysaan waa diin iyo kitaabo iyo qur'aan iyo aakhirad iga dhexlaysaan. aabe haddaan goor dhow dhinto magacii sheekh ibraahim miyuu baaba'ayaa? oo xirtan masaajidka joogtay wax akhrisata kitaabadan miyay wada urursanayaan? idinkuna ma ka qadi doontaan mise waad xajisanaysaan kitaabadiina, waad akhrisanaysaan, cilmigii waad xambaaraysaan, magicii sheekhnimo sheekh ibraahim waad sii wadaysaan. saddexdeenniiba waa ballan qaadnay. haddaynaan noqonin saddexdeennuba shuyuukh, waa in midkeen uu noqdaa sheekh oo magicii reerka uu hore usii dhigaa. waa dardaaranka aabe, waa dardaaran aabe walba uu ilmihiisa u dardaarmayo. alculamaau warathatu lambiyaa baa la yihi. rasuulka culimaa dhaxashay sala allahu alayhi wasalam. culimadii culimaa dhaxashay aabe walba oo cilmi bartaa wiilkiisaa sii dhexlayay. dardaarankii waa wada qaadanay. markhaati wuxuu yihi ilaahay baa markhaati inoo ah. deeqo oo hooyo ah, allah u naxariiste, wuxuu yihi markhaati weeyaan, tanna maalinta aakhiro ayaynu maaragtay isu imanaynaa. baarinimadayna ka tahay in la oofiye ballanta aabe. ogow wiil yahow iyo gabar yahay ogaada. waa la kala tegey markaanu faatixaysanay. aabe goor dambe u halkan kenya ku dhintay xerada qaxootiga. kadibna labadii wiil iyo qaar un adiga maaragtay reerka ah, walaashay ilaahay ha dhowre oo waalid inoo ah runtii aadna noloshayda qeyb weyn ka qaadatay. xaliimo sheekh ibraahim, allah u naxariisto. hadday imaqlaysana halkan ayaan ka salaamaya walaashay. aadaan u jeclahay, aad baan u jeclahay. noloshayda runtii wax bay ka qaadatay. noloshaydii weliba guurkaygii, waxbarashadaydii diiniga ahayd ee aan sanooyin runtii ku jiray, iyo dacwadayda gacan libaax bay ku leedahay, xoog bay ku leedahay. allaha dhowro, iyada iyo reerkeeda allaha dhowro, iyadiiyo gabdhaheeda allaha dhowro, nolosheeda allaha u qurxiyo, allaha ka farxiyo, uurkeedana farxadda allaha geliyo. ilaahay gabdhaheeda iyo awlaadeedana ilaahay waxaan ka barya allaha u dhowro, allaha uu ilaaliyo, cimrigoodana caafimaad iyo cibaadasan allaha siiyo. waa la qaaday wiilashii tage. anaa imid kenya. mar allaala markaan imid baytulmaal baan qur'aan xifdis galay. ilaahay wadadii iyo dardaarankii aabe ayuu isiiyey. idaylkeena haddaynaan shuyuukh wada noqonin, mid waa inuu noqdaa. fardu cayn maahe, waa fardu kifaaya. anaana mas-uul aha, anaana qaaday, anaana wiilasha u weynaa. mar allaaliyo markaan qur'aankii xifdiyey ayaa walaal waxay doontay sidoo kale inay qaado ay geyso yurub. dee tahriibna ma ahayn, sponsori beenna ma ahayn. bassabor kenyan lahaa si toosa. viisada jarmalka ayaa free ahayd, bilaa viisa. tigid intaad goysatay tegi lahayd. lacagtii $3,000 way ii soo dirtay oo aan weliba aan maaragtay de aan pocket money aan ka dhiganayo, anoo dalxiisa iska dhigaya. tigidkii wixii oo dhan waa haystaa. yacni asbaabihii aan ku bixi lahaa, yurub ku tegi lahaa si raaxa leh, from nairobi to maaragtay frankfurt waan haystaa. laakiin waxbaa i celinaya. mar walba way soo wacaysaa baayo, waxay leedahay waa sidee, dadkii waa soo baxayaa leenkii unan xirmin. tahriib ma kartid, hadhoweye mow war soo bax, dad baan kuu diyaariyey. wax walba walaal waan haystaa, imkaaniyaadkii oo dhan wax iga maqan ma leh. intii qof walaalkeed ay u dadaasho way ii dadaashay. laakiin waxbaa i celinaya, waxbaa i reebaya. waan baxa anigii wiilal kale, waxaa tigidhada soo gorgorinaa. way goostaan tigidhada, habeenkii way baxaan, anna waa soo laabtaa. waan soo noqdaa, mar walba waan soo laabtaa. waxbaa i riixaya, ma garanayo waxa i riixaya, ma garanayo waxa gadaal ii celinaya. ilan aabbaa i haysta, dardaarankiibaa i haysta, ilaahay baa khayr ila doonaya. waa ku qanacsanahay. qur'aankaa markaa xifdiyey.
maalin maalmaha kamida anigoo eidka masaajidka ku tukanaya safka hore fadhiya casarkii markaan dhamaynay ayaan yaro fariistay caadana waxaa ii ah masaajidada marka aan galo waagaan wax baranayay makici salaada kadib qur'aanka intaan soo qaataan akhrisan jiray masaajidkii aniga iyo waxaa ku harnay nin markaa carab u ekaa soomaalidan cadcad oo geeskaa 10 ruux oo kale ay inoo dhexaysa anigu kitaabkii baan qaatay kitaabkii baan iska akhrisanaya kadibna ninkii wuu hadlayaa dhar qurux badanna wuu xiran yahay keligii baa hadlaya wuxuu leeyahay ha bixin khayrkuu ma aha iska joog dhalinyaradii halkaa way ku fasahaadi ha tegin nin wanaagsan baa tahay masaajidadan kugu arkaa mar walba safka hore ha bixin imana soo eegaayo nin wardinayaad moodaa qiraa'adii baa joojiyey waan fiiriyey ninku nima waalna dharkiis waa qurxoon waa nin dhan markaasaa waxaan ku yidhi asalaamu calaykum waa sidee waad hadlaysaaye adaan kula hadlayaa buu yidhi maba isoo eegeyside inaan ku mashquuliyaan diidaayaa buu yidhi hadalkana uma qasdine isagaa iska soo baxaya si automatig ah waxaan iri xaggeen aadayaa ha bixin waa adigii lahaaye wuxuu yidhi ha bixin dhalinyaradii oo dhan yurub bay tagtay waa tahriibku uu aad u socday weeyaan waa 98 waa 2000 meelaha adigu 2000 waay marka wuxuu yidhi Australia ayaan ka soo laabtay dadkii baxay la qaaday baan ahayn markaanu meesha tagnay noloshii waa qabatimi waaye nin oday baan ahaaye qabowgii jilbihii baa xanuunay ilmo gacan kuma hay reer gacan kuma hay inaan soo noqonnana waan doonay reerkii waa iga diideen waan ka soo tagay buu yidhi anaa hadda halkan jooga dhalinyarada halkaa way ku halowday ha tegin joog nin wanaagsan baa tahay halkaa khayrkuu ma aha diin ayaad ku dhex jirtaa iyo aakhiro oo iska aamusay waan baxay gabadhii baan la hadlay abaay ma soo baxday waxaan iri xaliimoy ma aanay ogeyn marka iyada dardaaranka way naga maqneed habeenku aabe inala dardaarmayay waxaan iri xaliima abaayo waxbaa i ceelinaya waxa i ceelinaya ha ii sheeg bay tiri wax ku ceelinaya dardaarankii baan u sheegay abaayo way iska oysay waxay tiri waa run labadii wiil adduunyay baranayaan maanta iyo maadi bay baranayaan waxa haray waa adiga laga yaabay ilaahay in dardaarankaas iyo xilkaas adiga aad qaadid waxaan ku iri xaliimo lacagtaas waa kuu soo celinaya inteeda badan $1 keliyaan kaa rabaa tigid aan ku goosto yurub wax iga jira male haba yaraatee qaahira iyo jaamicatul azhar halkaasaa aniga halkaas waa hadafkayga halkaasaa baadida iga maqan halkaasay jirtaa halkaasaan aadaya xaliimo runtii waalid bay ii ahayd waana waxaan ku jeclahay waxay tiri inta aad halkaa joogtid anaa mas-uul kaa ah biilkaaga cid kale ha weydiinin fuli dardaarankii aabe watacaawanuu cala albiri waataqwa aad bay runtii garab iigu noqotay halkii baan tegey waan bartay 2 sano maanan joogin anigoo halkaa jooga ayaa la isoo dalbay oo qolo dacwo ah ay soo dalbeen oo yurub oo wadaada oo yiri shirkaali ka soo qayb gal eeg ilaahay sidoo albaabada u furaayo waman yattaqi illah yaj'al lahu min amrihi yusra wa ufududeeya waxaan loo ordaya yurub oo dadku isu dilayaan magafayaalka xoolaha la dhacayo waxaan waalidiintii la murugeliyay badaha lagu leeanayo saxaraha lagu dhimanayo dhaxda la isku kufsanayo waxaan sanoo bilooyinka dhaxda lagu sii jirayo eeg anaa diidan waa markii labaad yurub aan diidayo waan lahay jaamacad baan dhiganayaa waqtigii ii bedelo fasaxa ku aadiya waa kaasa hor i gadaal aan u sii socdo anoonan tahriibin waa duco waalidiinta baarinimadooda aad u dhegaysta waxaa ka mid ah marka ay dhintaan kadib dardaarankoodii in la fuliyo waxaan kaloo xusuustaa aabe waayadii dambe xoogaha indhaha ashka ma ahayn da'na wuu ahaa wuxuu arki jiray suuqii baydhabo oo caanaha iyo burka la isku daro saliidda iyo subaga la isku daro malabka iyo sokorta la isku daro qish badan baa ka socday mar walbana wuxuu jeclaa dacwada shaarica banaanka markaasaa wuxuu dhihi jiray haddii aan haysan lahaa wiil wanaagsan usha ii qabta igeeya suuqa haweenkaasaan u sheegi lahaa qishka inay ka daayaan ummadda allah anigan aad baan u yaraa 8 jir 9 jir 10 jir kubaddaan aad u ciyaari jiray
waa yani waa iska baashaali jiray xoogaha dhinacaas dacwada dee waan yaraa cilmigeedana maanan lahayn xataa cimaamada iyo khamiiska ii gelinayaan ka xishoon jiray dharga gaabane dee waktigeediina waan joogay laakiin maanta ayaan leeyahay aabe waxaan leeyahay haddii waagii aan yaraa usha aanan kuu qabanin suuqaa ku geynin si aad ummadda u wacyi gelisid anaa maanta booskaagii kuu jooga anaa maanta taagan suuqyada wareegaya guryaha gelaya shawaaricda socda hawshaad ku tamaninaysay hawshiyaad qalbiga ku haysay anaa maanta qabanaya anaa noloshayda u daayey anaa noloshayda iyo waktigayga siiyey ilaa aan ilaahay kala kulmana anaa hawshaas u taagan waana baarinimada aan rabo inaan ilaahay kula hortago dhalinyarooy ogaada waalidiintiina khaasatan hooyo hala ogaado hooyo waa daciif waay hooyo waa daciif waay hooyo way naxariis badan tahay hooyo wax walboo nolosheeda wanaageeday idiin hortay ogaada hooyo wiilal yahow hooyadiina waa jannadiina hooyadiina waa saaxiibadiina hooyo u raariciya garabka ha murjinina hooyooyinka yaan laga maqnaanin weel ha loo noqdo saaxiib ha loo noqdo waktigeena inta badan hooyo aabbo khaasatan hooyo aynu siino aynu oofino baarinimadooda aynu qaadano wax walba iyo kurbo walba iyadaa faydaysa nolosha waalidkaa inoo furaya baarinimada inoo furaysa iyadaa guur aynu ku helaynaa ubadka aynu ku helaynaa inoogu hagaagsanaanayaan nolosha inoo maaragtay waasicinaysa irsaaqda inoo waasicinaysa farxad inoo keenaysa jannadiina waalidkaanu ku gelaynaa dardaarankeena ha noqdo waalidiinta ha loo baarinimo falo wasalaamu calaykum waraxmat ullah